السلام عليكم واتهي داوديال soo dhawaada lixda buug ee adduunka ugu iibka badan inta la og yahay taariikhda barnaamijkeena maanta oo kooban waxaan isku dayi doonaa inaan si fudud soo gudbino buugaag xarumaha akhriska korfeeya ku tilmaamay inay yihiin kuwa ugu iibka badan inta taariikhda bini'aadamka la og yahay waa marka laga tago kutubta muqaddaska ah ee waxyiga xambaarsan waxa laga yaabaa in sheekada buugaagtani waxooga macquul oo kan weedo laakiin marka aad fiirsato siday u caan baxeen iyo sida looga yaqaano meelo badan oo dhulka guudkiisa ka mid ah waxa hubaala inaad garwaaqsato in buugaagtani banaysteen kaalmo hore iibka inkastoo ay jiraan buugaag badan oo lagu tilmaamo kuwa ugu iibka badan ee adduunka soo maray haddana lagama yaabo in laga dhex waayo 60 buug ee aan ka warrami doono oo kala sidan soo socota waxa ugu horeeya buugga magaciisa la yiraahdo A Tale of Two Cities oo uu qoray sheeko qorihii Ingiriiska ahaa ee la oran jiray Charles Dickens buuggan oo macnihiisu yahay sheekadii labada magaalo waxa la daabacay sanadkii 1859 waxaanu si xeel dheer oo farshaxanimo suugaaneed ka muuqato ugu soo bandhigay dhibaatadii haysatay dabaqadaha shaqaalaha ee waddanka Faransiiska ka hor intaanu dhicin kacdoonkii waddanka ka hana qaaday waxa lagu tilmaamaa inuu yahay buug xambaarsan ereyo suugaaneed yaab leh oo sababay in lagu daraaseeyo ama ardayda loogu dhigo dugsiyada sare ee waddanka Mareykanka iyo wadamo badan oo adduunka ka tirsan buuggan oo marka laga tago ereyada quruxda badan ee ku qoran yahay xambaarsan taariikhi arrimo bini'aadantinimo waxa lagu qiyaasay in laga iibsaday 200 milyan oo nuqul sidoo kalena ay wada yaqaanaan dadka akhriya buugaagta ee adduunka ku dhaqan buugga ku jira kaalinta labaad waxa lagu magacaabaa The Lord of the Rings oo af Soomaali ku noqonaysa mudanihii fargalada waxa qoray J.R. Tolkien oo u dhashay waddanka Ingiriiska sheekada buuggan xambaarsan yahay waa sheeko malaawaala ayaa waxa lagu tilmaamay in markii ugu horeysay la daabacay oo ku beegnay sanadku markuu ahaa 1954 ay ka koobnayd buug 3 qaybood ah 3 volumes inkastoo laga sameeyay film la'aan ah oo leh magaca buuggan haddana ilaa imika dadku si xawli ah ay u iibsadaan buuggan iibkiisuna wuxuu kor u dhaafay 150 milyan oo nuqul ama nusxadood buugga saddexaad oo isna mid sheeko xambaarsan waxa lagu magacaabaa Le Petit Prince oo macnihiisu yahay amiirkii yaraa waxa qoray qoraa Faransiis ah oo magaciisa la yiraahdo Antonio Design buuggan oo ka kooban 24 cutub wuxuu ka warramayaa yahay sheeko xariiro carruurta loogu talagalay waxaana lagu turjumay in ka badan 20 luqadood inkastoo uu qoraaga buuggan uu dhintay sanad kadib markuu soo saaray buuggiisan haddana waxa lagu qiyaasay in sanad kasta laga iibsaday xaddi aad u badan iyada oo inta koobi ama nuqul ee lagu iibsaday gaadhayaan 140 milyan oo nuqul buugaagta kale waxa ka mid ah The Hobbit or There and Back Again oo qoray J.R. Tolkien macnihiisuna yahay Hobbit amba bax iyo soo guriyo noqosho iyo buug kale lagu magacaabo Reedii qolka cad Dream of Red Chamber oo qoray nin u dhashay waddanka Shiinaha oo la oran jiray Kawaii Queen iyo ugu dambeyntii buug ay qortay Agatha Christie oo ku caana sheekooyinka dambe baadhista oo lagu magacaabo Andan Wernan ama dabadeed cidi kama hadhin dhammaan buugaagtani waxay ka mid yihiin 20 buug ee adduunka ugu iibka badan inta la og yahay iyaga oo waliba kaalmaha hore cidhiidhsaday daawada barnaamijka dadka shafiido uga like saar haddaad nagu cusubtana subscribe saar oo nagu soo biir sina share garow. Assalaamu calaykum.